wasalaamu calayh. islaamka waxaa lagu dhisay 5 tiir. tiirar ayaa laga cabiray. waxaa tiir looga cabiray aqal la dhisayo derbiyadiisa mid kamida haddii la jabiyo aqal meesha kama dhisnaa, mana ou taagnaanayo, mana la oran karo meesha aqal baa ku yaala, aqalku waa dunsan yahay ayaa qof walba oranaya. 5 tiir oo diinta islaamka arkaanta u ah mid kamida qofka la yaca kitaabkii ilaahay oo dhan buu la yacay, sunnadii nabiga oo dhan buu la yacay, diintii islaamka oo dhan buu ihanaysay. islaamku ma qaybsamee jumlo ayaa loo qaataa. waxaa ugu horeeya in la diro allah mooye macbuud kale inuusan jirin. allah mooye macbuud kale inuusan jirin qofka diray maxaa lagu yaqaan? rabbi buu ka cabsadaa waana ka amar qaataa. rabbi buu ka cabsadaa waxa uu ka xarimo ka tagaa. rabbi buu ka cabsadaa kitaabkiisa uu ku dhaqmaa. saasaa lagu garanayaa maxamed waa rasuulkii allah. waa inuu qofka qiraa waxa alla risaalada u soo dhiibay inay nebi maxamed yihiin sala allahu calayh wasalam. rasuulku waa risaale side. risaalada nabiga qofka ajiiba ayaa raxmad la siiyaa. risaalada nabiga qofka ajiiba ayaa rabbi u gargaaraa. risaalada nabiga qofka ajiiba ayaa qabriga xiriirigiisa laga dhowraa. risaaladu siday tahay qofka u ajiibi waayo dadka ridoobaha lagu tiriyaa, raxmadda allana loo diido. maxamed waa rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam. hadduu rasuulkii alla yahay ku dayo oo warkiisa ajiib, berrita waxaa ku hor taalla maadaa kuntum tacbuduun wa maadaa ajabtum almursaliin. maxaad soo caabudi jirteen? rabbulciise miyaad caabudeen mase hawada mase qabiilka mase xoolaha? rusushii laydin soo diray maxaad ku ajiibteen? camalka aad samay jirtay yaad ka qaadatood uga dayatay? waxaad ku jawaabi laheed baa lagaa doonayaa. marka axadka risaalada rumeeyey waa qofka uu rasuulku u yidhi man qaala radiitu billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxammadin nabiya wajaba lahu ljanna sala allahu calayh wasalam. axadka allah rabbi ka dhigta oo diinta dhaqan ka dhigta oo maxamed rasuul ka dhigta jannada allaa u waajibto u nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. jannada alle say kuugu waajibaysa haddana sidaa dhaqan ka dhigan. salaada alle hagaajinteedu waa rukniga labaad. salaada dadka aan hagaajin diin ma lahan. waxaadna ogaatay arkaanta islaamka rugniga ugu horeeya waa laa ilaaha ila allah. carabka in looga dhawaaqo qalbiga laga aamino, xibnaha in looga dhaqmana waxaa lagu gartaa salaada oo la hagaajiyo. maxaa yeelay haddaad carabka uga dhawaaqdo oodan qalbiga ka rumayso oodan xibnaha uga dhaqmin waxba lagaa yeelin maayo. inaad xibnaha uga dhaqantay waxaa lagu garanayaa hagaajinta salaada, waxaa lagu garanayaa bixinta sakada, waxaa lagu garanayaa soonka ramadaan yani in la soomo, waxaa lagu garanayaa baydka alle in loo qasto. 5 rukni mid kamida qofka la yaca lagama aqbala diin. axadka tawxiidka ku dhawaaqa oo salaada dukan, sakada iyo soonka iyo xajka lagama yeelo. axadka salaada dukada oo sakada bixintiida oo xoola leh, soonka iyo wax ka dambeeya lagama yeelo. axadka salaada dukaday oo sakada bixiyo tawxiidka la yimid oo soonka iyo xajka diiday wax laga aqbalayaa ma jiraan. wax walbana waa lagu soo tuurayaa. waayo waxuu noqonayaa qof taagan afatuuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin. ikhwaanii rabbi ha laga boqo oo salaada alle dad rumaysan oo wanaajiyo aan noqono. rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah wayuqiimu asalaata wayuutu zakaa faidaa facaluu dalik casamuu minii dima'ahum waamwaalahum ila bixaqi lislaam waxisaabum cala allah. waxaa lay amray dadka gaalada ah inaan la dagaalamo oo mushrikiinta ah ilaa ay waxdaaniyada alla ka qirayaan oy rasuulka ka rumaynayaan. ma intaasaa lagu daynayaa? waa maya, ilaa ay salaada ka wanaajinayaan. axadka tawxiidka ku dhawaaqa hadduu salaada duka diido waa la tooganayaa, waa la dilayaa. wax uu yahay ma lahan. ama ha loo dilo gaalnimo oo ilaa la yidhahdo waa ridoobay, ama dadka qaar ha yidhahdeen waa xaasi, laakiin waa la dilayaa. waayo bal arag hadalka rasuulka xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah wayuqiimu asalaa wayu'tu zakaa faidaa facaluu dalik. intaa markay sameeyaan dhiigooda iyo maalkooda way iga ilaaliyeen. ilaa islaamka xaqiisa maahane. islaamka xaqiisa waxaa loola jeedaa intaa ninka la yimaaday ee wax dilay waa loo qabanayaa. hadduu sinaysay waa la xadayaa. hadduu waxalay gacantaa laga goynayaa. halkaas ayaa la marayaa. xisaabka uu rasuulku sheegaya waxaa laga wadaa qalbigooda waxaa ku jira rabbi baa kula xisaabtamaya. laakiin annagu waxaan u garanaynaa inuu qof islaama yahay. salaada qofka aan
dukan in la dilaa waa waajib in la dhacaa waa lagama maarmaan dhiiggiisu hadur weeye allaha daa'imka ayaa necab sow diinta u diido ugu dhaqmi waayey ayaa alla u dulaynayaa darakaadka naartana ugu degayaa sidaa darteed dadka aan salaada dukan waxay ku nool yihiin duwalka gaaladaa dartood low ay dawla islaamiya jiri lahayd saacad badan baa la layn lahay dad aan salaada dukan oo diin isku sheegaya ahadka aan salaada dukan waa cadow waa cado alla qof qaba waa qofka muslimiinta sababtii loo cadaabayo ahadka aan salaada dukan ha soo dhawaynina waa lacnadan yahay cado alla ayaa ku soo degata waxuuna ku jiraa qolada meesha ay joogaan aan malaa'igta naxariistu imaanin dadka aan salaada dukan oo muslimiin ma ahan waayo rasuulku waatuu xadiis saxiixa ku yidhi man sallaa salaatana واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين أحد كالصلاة ندكذا وقبلتنا قابلة وقورحنا عنا كاس أيام مسلم ليرا وعا مسلمين تأسغن أيا أسغن وعا مسلمين تدجول لقولي أيا لقولي أحد كان قبلتنا أدكن صلاة عندكن إنه الله سودتي عندكن وعا أي مسلمين تحلال وركيان أن حلال كدقن oo xaaraanta iyo baktiga aan kala soocin axadka asagaa muslimiinta laguma tirinayo muslimiinta u rabbigiin ka cabsadoo wanaagga ilaaliya salaada sida ay tahay ugu dadaala dadka salaada layaca rabbulciise ayaa layacaa waxay alle agtiisa ku leeyihin oo khayrana ma lahan arrinku inuu sidaa yahay allah subxaanahu watacaala waxuu qur-aankiisa ku yidhi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين مجرمين تمرك لويا محاسة قريب جاي معي أورانيا ما أن دكجرين هدي دكلا نسيو دكجرين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وإذا النار توحى إسكالة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كوى صلاة وقت جاي الدب أغطقها الذين يضيعون شروط الصلاة وأركانها كوى صلاة شروط ذي أركان تيلا يحيى وذيك النار تأيي إسكاليين صلاة دولي حلمامان سنتي مرولا قليان أما صدبدي بريبي مالين دكالان أما حيدة كلياي كسو قيب كلان أما بشر رمضان كيسو مسلم على مساجد يمالين مالين تحيدة ندين تويك بحانا ويقالوا dadka noocaasa wadiga naarta ayay iska leeyihiin waa dadka saqara lagu guraya lagu yidhi maxaa idinku dhaco naarta idin geeyey ma aanan duka jirin lam nakun min almusalliin dadka dukada kuma aanan jiri jirin maxaa kaloo idinku dhacay walam nakun nudcimu almiskiin axadka miskiinkaa ma aanan quudin jirin quudka asagaa waxaa loola jeedaa afkeenna kuma difaacin jirin xoolaheenna wax kama sii jirin caqligeenna wax uguma qaban jirin waxay u baahan yihiin masaakiinta oo dhan waan diidi jirnay waxba kama qaban jirin axadka cilmigiisa ku bakiila qofka caqligiisa ku bakiila qofka xoolihiisa ku bakiila oo dadka ugu baahan wax uga qaban waaya halkaas ayuu soo gelayaa alla axad walbaa wuxuu u baahan yahay ayuu miskiin u yahay jaahilku waa miskiin oo cilmigu u baahan yahay kan aan xoolaha haysana waa miskiin oo wax cuna u baahan yahay kan caqliga lahayna waa miskiin oo qof la taliyo u baahan yahay intaa wax kamida ninka ku bakiila dadkan cadaabka lagu subaya ayaa lagu daray waxay ku sii dareen oo alla ka warramay subxaanahu watacaala waxaan ahaan jirnay wa kunnaa naquudu maca alqaa'idiin dadka baadilka dabaashaan la dabaalan jirnay waa dadka qayilaha qaadka cuna say aayaddu u taqaan u fiiriso qolada qaadka cunta naquudu maca alqaa'idiin 24 saac hadal bay wadaan wax ay sheegayaan lama yaqaan murtid miyay leeyihiin waa maya aanu ku sheekaysanne qaad ha naloo soo qaado naquudu maca alqaa'idiin geedka la yidhaahdo dariiq ama qabaweynta naarta laga cuno u eg dadka cuna ayaa sidaa ku sifoobay dadka qaadka cunaa waxay cunaan geedka naarta laga cuno oo kale geedka naarta laga cuno alla waxau yidhi laa yusminu walaa yuqnii min juuc qofka cunaa kuma xayilo dadkana gaajada kama tiro bal waxaa laga qaadaa cidhiiri iyo dhib ummadda waa ku margadaa oo dhuunta ma dhaafo qaadku sidaa weeyaan saaxad kasta in biyo lagu dejiyo mooye waa ku margadaa dadka cunaa haloosha way ka xirxirantaa balaayo ayaa alla ku sallida 9 soodho iyo 9 yacni tarmuus oo tarmuusa iyo 9 jalmadood oo biyo ah ayay isku dhammeeyaan meelay ka baxayna lama garanayo alla qur-aanka wuxuu ku yidhi ina ladayna ankaalan wa jaxiima wa dacaaman daa qusat
دعام عن دون تدافن أيان وهينا ذاتك الناس قالا بحرك قاد كليلا دون تمدافو تبسي سوالا سفا دعام بين أيان الله أفري الله تنك سهدان ميرها مسجد وسينو يالي أيان مدرقة في أياني كسوط عليين وهكذا marka waa u jeedaa sida alla ugu ekaysiyo cuntada lagu cuno naarta rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo dad diinta ilaahay ku dhaqmo qurunka ka taga aan noqono yaan alla noo carooni subxaana wa tacaala dadka salaada ka tegay alla agtiisa dhib badan ayay ku leeyihiin waana dad aan muslimiin ahayn salaada waajibkeeda markuu rasuulku ka sheekaynayey xadiis saxiix jaamic ku sugan waxa uu ku yidhi أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم صلى الله عليه وسلم صلاة هجاجية وزكاة بحية وحجية وعمريسة واستقيموا توسنارا وحالا إذين دري فرنتو لكو توسنارا وأنا إذين توسنيا وأنا لين وناجنيا صلوات الله وسلامه عليه صلاة هجاجية ولا زكاة كبحية أرضها حجية وعمريسة ونبي يريد waxaa loo xajiyaa waa baydka alle kacbada ah qubuurta looma xajiyo cumrada waxaa loo aadaa waa baydka alle ee yurub ma ahan qubuurtana ma ahan dad badan oo xajka waxay ka dhigteen barwaaqa sooranka iskadaneefyanka haye dad badan waxay xajka ka dhigteen qubuur ku taalla geeska africa haye waa loo xajinayaa xajulmasaakiin baa la yidhaah axadka yidhaah qabri ay oo la tago waa xajulmasaakiin waa murtad diinta islaamka ka baxay asagoo sidaa ku socda hadduu ku dhinto waxa walaagtiisa kuleeyo wanaaga ma lahan xajka xaggoo ku yaalla qabriga rasuulkaan loo xajin dad baa waxay aaminsan yihiin xajka inaan laga aqbalayn haddaysan qabriga nabiga tegin sala allahu alayh wasalam waa dadaan diin aaminsanayn diin ay leeyihin aan la garanayn nabiga qabrigiisu xajka ka mid maahan xajku waxau ku yaallaa maka waxauna ka yani yahay amaakin carafa musdalifa muna iyo amaakin la tuurto laakin ka mid maahan qabriga nabigu sala allahu alayh wasalam maalinta uu rasuulku noolayo isagu soo xajinayey qabriga nabiga in la aada hadday waajib tahay xaggay dadku aadi jireen xaggay u xajinayeen xajatulwadaa xaggee baa la aaday hadallada odhanaya qofkaan qabrigayga soo siyaaran waa igooyaan nabigu yidhi waa been mawduuca oo nabiga lagu been abuurtay mana banaana in la deliishado rasuulka qabrigiisa in la tagaa waajib ma ahan mana loo baahna in la yidhaha qabriga nabigan aadaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa lagaaga baahan yahay inaad tidhaahdo masjidka nabigaan kusoo dukanaya haye waa lagu ogol yahay inaad masjidka nabiga salaad u aadid markaas ka gadaal qabriga siyaaro laakiin siyaaro qabriga nabiga aan aadayaan halkaa uga tegey bidcada ayaa diiday adaan bidci ahayn ee bal waayahayo oradoo baabka diinta meel ka qabatay waxaad sheegaysid oradoo u keen xadiis nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam rabbi ha laga baqo ha la xajiyo xajka waa kacbada axadka xajinayaa cilmiga xajka ha barto qofka cumraysanaya cumrada sida loola yimaado ha barto kan soomaya ha barto soonka kan saka bixinaya ha barto sakada kan salaad dukanayaana ha barto intaa mid kamida qofka sameeya isagoon cilmigeeda lahayn waxau rasuulka alla noo cadeeyay inaan laga aqbalaynin salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii laga aqbalayo khallaad binu raafic markuu salaada dukaday nabigu kuma yidhaahdeen fasalli fa innaka lam tusalli soo duka ma aadan dukane oradoo soo duko ma aadan dukanayo yidhi sala allahu alayh wasalam ma aadan dukan rasuulku wau ka inkiray sala allahu alayh wasalam haye lama oran jaahil baa ti hadda ha lagu baro rabbi ha laga cabsado subxaana wa tacaala ikhwaanii jahliga dadka loogu cudri karayo aan baranno salaadaas ilaahay waa waajib yaan la layicin waxaanu daraasay doonaa haddii allah qadara arkaanteeda dadka aan garanaynow soo doonta oo barta oo rabbiga inka cabsada haddii kale waxa aad dukanaysaan salaadii ay noqonin war ilaahay ka xigtooda dan adinka idinkugu jirtaa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau ku yidhi xadiidka baraani macaajimta ku qoray albaanina uu saxiixuljaamic ku saxiixiyey man aamana billahi wa rasuulih wa aqaama asalaata wa saama ramadaan kana xaqan cala allahi an yudkilahu aljanna haajara fi sabiili illah ow lam yuhaajir salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxau rasuulku odhanayaa axadka allah rumeeya aamana billah wa rasuulih axadka allah rumeeye ka cabsada oo rasuulkiisa rumeeye ku dayda wa aqaama asalaa salaada hagaajiya salaada hagaajiya laguma oranin dugdukada foorfoorarsada salaada hagaajiya wasaqaadkeeda arkaanteeda iyo khushuuceeda qayb walbo kamida wanaajiya oo aata zakaa zakada xoolihiisa ka bixiya wa saama ramadaan bisha ramadaanka la yidhaha siday tahay u sooma calooshiisa xaaraanta ka soomiya indhihiisa baktiga ka ilaaliya
ابنه سنة حاران أوطن كمنعية كان على الله حقا أن يدخله الجنة. إله واحد دشيس واجب كوه إنه الجنة ربك جليو ربي بقى واجب سبحانه وتعالى. أيه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان. أيه. هجاجين الصلاة يبي أنت سكلة به مركز بوليه حورها وحلالها نقدين طريق حرارة كبه. أيه. تبع مالي والبحر بحية وحلا مقيليه قبيل كقاران كيسة وحرانته لغو سماييه ورقفك مسلم كواجب بيكون تيه الكيسة إنه ولاجيه أحد كقرابة الكويين الله الرحمن كواحيري أيو كسالدا لكن وحا لغو حريريا وحا أي دين تقصه. أيه. بغتي والبطرك لولا صلكا أيو كبتا لو لغو نحجراته حران كسالة دوالي في قصوكي كما جنة قال ليري ثانية ما هدفرك يا قبيل وقبيلك ووحا عذابك ألكو ويريا على الله يسلمك ودي إن دين تيلاري أجيك واحد تلا هذا دي والله أنت كلا جتي كريم نيك سوى صغار غلابة إيجي في كتجوا أيه إذا وح الله وحي رفض السمايسو أحد والبو أجا وحكوا بدالي كراه الله رمضان كالصوم أحد كالصوم وينوسن موسر دقيسن وينوسن قاضي السجار كأفورين وينوسن خمرة كأفورين وينوسن ربا كأفورين وينوسن كف يعني كسحورين أيه والله قام أرمان وينوسن صرف يجبلد يسحمدنا عيارين انت عمد كميلة قفك سمايا أساقوا صاما من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع دعامه وشرابه ونبي حاجة سيئة أحد هذا الكبين سيئة وعمل فلكي سيئة وما أنت أنكتي إلهي شقاكم الله حسد كون كيسة انت هي شراب كأساقا كذي سيئة والله كفلا يا مجران هي وانت أمنا وحن دوننا وحن سمينا يا لا وحن مغليسا كواكو عرنا يسحور تنكو سبنينا تربي عيارة يا waxaa maqlaysaa kuwa ku odhanaya qorax ayaan ku ridanaynaa muusiqay dhegaysanay safka kaalay buu qabaya laafyaa garaha lagu raaxaysanaya markaasuu leeyahay waa ku jira war ilaahayna ka xisooda subxaana wa tacaala rabbi waxaa waajibka inuu jannada geliyo haajara fii sabiili illah waxau rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam dariiqa alla ku haajiriya ow lam yuhaajir ama kuma haajirina lacalla an yaskuna yani alardu aladii wulida fiih dhulkii lagu dhalow iska joogay ama diinta alle wuxuu qabashadeeda u haajiray سكة سبع النقطة وقفك أرمها لك هلو جنة لا قريم بولي صلوات الله والسلام عليه رسولك الله سيقي أي أحد كالسلادة إلهيي وقفك أن حاران عنين وأن حاران لبسن وأن حاران كسيب سنين ما هي حتى الحاران عنتين أما الحاران لبستين أما الحاران قولتين ما حكوا يالا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وعلى كعقبل معله ما هي الله وطيب أي وطيب قفك الدونة إنه عبادة عمل كيس الله يرى الجنة لقريو عملك هو أبوك حوقا وين حلاليين هذا الدونية إخواني والله كما مرمنا رنت السيدة رسولك إلهي وحو نوبلا قابلين جنة لقريو أرمها هدان فلين وينه وحان قارين أو وناقا مجران رسولك صلى الله عليه وسلم مركو صلاة فضل جيدة يتيمها إذا كتاكين وحو كل حديث مسلم كسوكا والصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا ما لم يقتل كبائر صلوات الله والسلام عليه وإلى قربه ورمضان إلى رمضان كتريا وهو يا سمت الصلاة جمعة إلى جمعة كله وعلى قدها فإنت أبحي إذا تمدق الله كريس ما لم يقتل كبائر وفي بعض الروايات ما لم يؤتي كبيرة هذا سنقف في الدم وينه كبيرة الله إيمان صلاة الدم وحلقه الله قدك جاجوسنimadu waa shaqo khiyaanadu waa shaqo qabyaaladu waa shaqo kaawanaanta dumarkeenu waa shaqo qaab cunitaanku waa shaqo iyo kabex musharida intaasoo idin uma ka shaqaynaysa dambiga sala loogu dhaafin waa maya oo shaqo laga dhigtay ribadu waa shaqo jaajuusnimadu waa shaqo khiyaanadu waa shaqo qabyaaladu waa shaqo kaawanaanta dumarkeenu waa shaqo qaab cunitaanku waa shaqo iyo kabex musharida intaasoo idin uma ka shaqaynaysa dambiga sala loogu dhaafin waa maya hasugi waa diiday rasuulka alle sala allahu alayh wasalam ما دعي دون تبويري أحد كمسلم كا ودونيا صلاة إن لقوا سامحه سكر إن لقى إلاليو سكن نعيمة إن وكحنا سبك النبي الله قدره هاي إلالية الصلاة هذا إسكت يا جنبيالك ووين كبيرة للهيرة وهذا هو نقدوني هذا سندوني ناس الله وياه رسولك صلى الله عليه وسلم حديث دوراني كنت بنو الباني وعصوا وكورنيا مركز صلاة وقت جيل للجاره إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة الله ملك بأسطبنا صلاة كسأكت إلى يوم واقع يا ملكم حورنا يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم فاطفئوها عنكم والبني آدم كو استهايا نار تعاب شدين أرضها إسكدنية بني آدم قوموا إلى نيرانكم فاطفئوها محلوا للجيلة
waxaad yeelaysaan dembi ayaad ku jirtaan weyse qaata salaadu kada dembigii aad gasheen baa laydinka dhaqayaa rasuulku waxau ku fasiray arrinta ayada xadiis aw dabaraani ku qoray awsad iyo sagiir albaanina u yidhi waa xasan taxtariquuna faidaa sallaytum subxa kasaladha salawaatu ullahi wasalaamu calaykum waxau rasuulku yidhi waad gubanaysaan dembi ayaad ku gubanaysaan subaxa markaad dukataan way idin dhaqin salaadii subax ayaa idin dhaqaysa waxay idinka dhigaysaan nadiif naxariista alle waxaa ahal u ah uma taxtariquun faidaa sallaytum duhra kasaladha haddana waad gubanaysaan salaada duhurka kolkaad dukataan bay idin dhaqin salawaatu ullahi wasalaamu calaykum uma taxtariquun faidaa sallaytum alcasra kasaladha waad gubanaysaan dembi casriga markaad dukataan buu casrigu idin dhaqayaa salaadii casriga waxau yidhi sala allahu alayh wasalam uma taxtariquun faidaa sallaytum almaqriba kasaladha waad gubanaysaan haddana dibadeed waad gubanaysaan maqribka markaad dukataan buu maqribku idin dhaqayaa uma taxtariquun faidaa sallaytum alcishaa kasaladha waad gubanaysaan cishaha salaada la yidhaha markaad dukataan ayay idin dhaqin waxau yidhi sala allahu alayh wasalam uma tanaamuun falaa yuktabu calaykum dibadeed waad seexanaysaan ayadoon waxba la idiin qoraynin oo macnaha intaad hurdaysaan dembi la idiin qori maayo waa haddaadan darooga ku hurdin waa haddaadan xaaraan ku hurdin saad muusiq ugu raaxaysanaysa haddaad hurda la dhacday khalaas saad darooga u cunayso bakti ugu jirtaad ka taati dhacday khalaas may waa haddaadan xaaraan hurdadaada ku binayn waxaa weye waxba dembiga lagu qori ma sidaasoo rasuulkii alla yidhi sala allahu alay wasalam ikhwaani salaadu faa'iidadaas bay leedahay salaada faa'iidadaas leh dadka layaca ama ilaalin waaya waxay malaysanayaan in lagu tiriyo dadaan diin lahayn waayo allah subxaanahu watacaala waxau qur'aankiisa ku odhanayaa isagoo nooga sheekaynaya dadku waxa ay ku badbaadayaan fain taabuu waaqaamu asalaata waaatawu zakaata fakalluu sabiilahum dadku hadday shirkiga iyo inkiridda alla ka tagaan iyo diidmada ay rasuulka diidayaan oy salaada wanaajiyaan sakada bixiyaan nabadgeliya oo dariiqooda u qaaliyaada axadku hadduu yahay qof khayr doonaya waa inuu rabbigii isu dhiibaa rasuulkana u rasuulka dhigtaa salaada hagaajiyaa sakada bixiyaa waa ku liibaanaya haddaad intaas samayn weyda maxaa ku yaalla waxuu rasuulku ku yidhi xadiid duruqdiisa muslim abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja ku sugan bayna arajuli wa bayna ashirki tarku salaa bayna alrajuli waalkufri waaliimaan tarku salaa haye bayna alrajuli waalkufri waaliimaan tarku salaa axadka iyo gaalnimada iyo iimaanka waxa u dhexeeya waa salaada hadduu ka tago waa gaaloobay salaada hadduu ka tago gaalada u raacay salaada hadduu ka tago shirkiba ula yimid salaada hadduu ka tago iimaanka waa ka tegey saasuu u leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh haye axad sidaa loo oranayo oo rasuulka alle ou leeyahay diintaba wou ka tegey waxaan rabnaa inaan madaxa u salaaxno on kusoo dhawayno war haddaad khayr doonaysaan ummad yahay waxaad ku sifowdaan san tilmaamood oo lagu yaqaano dad kasta oo diin leh tilmaanta ugu horraysaa waa maxe axad walbow nafsadaada ka badbaadi naar oo cabsida alla ku dadaal waa amarkau rabbi ku siiyo ah oo qof walba oo muslima laga doonayo ah rabbigaa ka cabso wattaqu llaha aladi ilayhi tuxsharuun rabbiga xaggiisa laydiin kulminaya ka cabsada arrinta labaad oo meesha taallaa waa maxe oo lagaa doonayo shaydaanku cadow ayuu kuu yahay cadow ka dhigo ina shaydaana lakum caduwan fattakiduuhu caduwa haddaad cadow ka dhiga weysa asaga iyo waxa raaca naarta saciiro la yidhaha baa lagu guraa arrinta saddexaad oo meesha taallaa waxa weeye axad kasta oo diinta alle ku dhaqmi waaya oo qaadan waaya ehelka hadduu yahay iyo hadduusan ahayn u arag inuu cadowgaaga yahay oo allah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aabba'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan dadkiinu hadday gaalnimada iyo iimaanka gaalnimada jecel yihiin ha ka dhiganina awliya nasara marnaba ha ka dhiganina arrinta afaraad oo lagaa doonayaa waxa weeye oo haddaad ka fakertid aad wakti walba khayrka ku dadaali doontid hadalkau rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ucbud allaha kaannaka taraaha fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka haye rabbiga u caabud sidii adoo arkay oo kale haddaadan arkayn allah isaga adiga ku arkaya waxa daba yaalloo halkaad kula xariiraa waxay yihiin waxay arrintaasu kaaga suuro gashaa naftaada inaad geeri ku xisaabtid ood qabri ka fekertid oo waxaa ka dambeeya aad ka fekertid waxaas oo dhan waxaad ku gaaraysaa waa maxe dikriga ilaahay inaad daa'imtid oo arrinta shanaada dikriga ilaahay haddaad ka dhigatid shaqo
taqwadu way kuu fududaan shaydaanku cadow wuu kuu noqon dadka alla diiday waad la dagaalamin oo waad ka fogaanin oo waxaad alla u caabudaysaa sida asagoo hortaada taagan oo kale xaqiiqadu saasay noqon waayo camal qofka uga badbaadin badan oo ma jiro dikriga allah dadka liibaana adduunka iyo aakhiradana waa dadka daakiriinta mujaahidiinta waxaa guulaysta daakiriinta waxaa alla ajriga u laban laabaa daakiriinta waxaa is iyo sharaf alla siiyaa daakiriinta waxaa naarta laga badbaadiyana waa daakiriinta rabbi ha laga boqo subxaana watacaala intaa ka galaamo salaadaa marka la doonayo in la dukado qofka doonaya salaada inuu dukado waxaa laga doonayaa marada ugu horaysa inuu noqdo qof daahira qof daahir ah waxau ka dahaaro qaadanayaa waa maxee waa inuu qalbigiisa dahiraa waa inuu aratirkiisa dahiraayo jirkiisa haddii aan dahaaro la helin salaada laga aqbali maayo dahaarada lagu sheegayana waxa ugu horeeya waxa weeyaan waa inaad qalbigaaga ka dahirtaa shirkiga kibirka cujbiga xaasidnimada jacaylka adduunyada nacaybka islaamka iyo jacaylka gaalada ka dahir qalbigaaga intaa mid kamida hadday qalbigaaga ku jirto qalbigaagu waa nijaas qof qalbigiisu nijaaso yahana ilaahay waxba kama aqbalo subxaana watacaala waxba ilahay ka aqbali maayo waayo rabbi waxau odhanayaa ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutadahiriin rabbi markau dadka tawbakeenka badan sheegay ka gadaal ayuu kuwa dahaarada sheegay oo macnaha loola jeeda dadka rabbigood u laabta alla waa jecel yahay dadka xumaatada iska dahira alla waa u jecel yahay axadka hadday la tahay waxaan alla ahayn inay wax u qaban karaan hadday axadka la tahay cid aan alla ahayn inay cirka iyo dhulka tasarruf iyo maamul ku leedahay ya salaad laga yeeli maayo qalbigou nijaaso ka yahay qalbiga ayuu nijaaso ka yahay waxaana ku jira shirki ou alla yidhi axadka alla u shariig yeela camalkiisa waa la buriyaa lain ashragta layaxbadanna camalu haye waa inaad garataa cibaadada iyo awoodda koonka ku tasarufaysa inay alla tahay cibaadadana uu keligii iska leeyahay haddaadan sidaa gara waxba ku hagaagi maya waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo anigu waan rumaysanahay allah laakiin marka dhibku soo gaaro qolo kale ayaad u cabanaysaa haye sida ay dadku ukacsadaan dadka dhintay ama ma ahane waxaad aaminsan tahay qur'aanka ilaahay oo soo dejiyey inuusan adduunka nolol ka noqon karin oon dadka lagu xakumi karin ousan suuqa iyo ka tali karin xafiisyada salaad laga aqbali ma sida ay dadka dimuqraadiyada aaminsan salaad lagama aqbalo axadka ku qanacsan lafdiga dimuqraadiyada salaad lagama aqbalo waxaan salaad laga aqbalin oon laga yeelin qofka marka dhib soo gaaro awliyada kacsada iyo odayaashiisa dhintay lagama yeelayo maxaa yeelay qalbigoo nijaaso ka yahay mana aqbalay alla subxaana watacaala waxaan isaga gaar u ahayn faman kana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada war qofka camalka lagu soo radiya ma taqaanaa oo uu rasuulku yidhi waa idinkaga baqanayaa axad alle u dukanayey oo markau halkaa ku dukanaya halkaa inta qof uga jegay salaada qurxiyey hebelaa ku eegaya darteed ayaa camalka lagu soo tuuray oo la yidhi orad u doono kii aad ugu xidhaysa camalka haye maxay kula tahay qofka aaminsan alla qaydka inuu wax u qabanayo ama uwad leeyahay laa wax u hagaagaya ma jiraan marka qofka doonaya camalka in laga aqbala daahir ha noqdo waayo rasuulku xadiis saxiixa waxau ku yidhi oo ku sugan muslim iyo kayrkii allah subxaana watacaala laa yaqbal salaatan bikayri duhuur salaad aan loo dahaaro qaadan alla ma aqbalo rabbi ma aqbalo bilkulliyada salaaddu haddaysan dahaaro lahayn marka dahaarada lagaa doonayana waxa ugu horaysa waa tii qalbiga soo dahira quluubtiina rasuulka awaamirtii la siiyey waxaa ugu horreeyey wa tiyaabaka fadahir dharkaaga dahir dharkaaga gaabi dharkaaga wanaaji warudda fahjur asnaamta iyo qurunka ka haajir waxa alla ka sukayo wax la weydiista ka tag waxa alla ka sukayo laga cabsada ka tag rabbi keliya alla ka dhigo saasaa waa awaamirtii ugu horreydo nabiga la siiyey ka mid tahay sala allahu alayh wasalam marka ma waxay kula tahay labis ayaad xidhatay waxaad u xidhatay inaad ku soo dawaabtay qubuur ama waxaad u xidhatay sida dadku qaar aaminsan yihiin waxa u xidhatay dharka haddaanan xidhan cudur baa igu dhacaya haye waxu kalaa waxa la yidhaha wadaada iyo yaba waxay ku sheegi jiraan dharba wata dharka haddawsan wadan way ku dhacayaan waxaad u labisatoo dharka u qabtaa waa bahalladaa shaydaanka ah ilahay ula qabti salaadada kaaga asximila dharkaa maxaa yeele dharkaan qolo kalead u sidataaba dhar ilaahay lagu caabuda ma ahan ma loogu talageliy rabbi ha laga boqo subxaana watacaala axadka doonaya inuu dukado qof daahir ha noqdo oo shirki ka daahir ah iyo wax walba xumaataa waayo allah subxaana watacaala markau rijsi yani ka sheekaynaya shirkiga waxau ku tilmaamay inuu rijsi iyo qurun yahay waxauna yidhi mushrikiintu waa nijaas yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas war qof kastoo rabbi u shariig yeela waa nijaas qalbigay nijaasa uga jirtaa
meel walbay nijaasa uga jirtaa nijaasa weeye diintan islaamku waa diin ka warramaysa waxa qalbiga ku jira waxa qalbiga carabka looga hadlo iyo waxa ibnaha laga fulinayo meel kamida haddaadan ka qaadan kitaabka iyo sunnada waxba laga yeeli maayo ikhwaani rabbi ka baqda subxaana wa tacaala oo hala isdahiro markaa dahaaro lala yimaado ka gadaal ayaa salaada qaybaheedii kale lala imaanaya dahaarada marka maxaa ugu horreeya shirka haddii laga tegay waayo rasuulku waxau yidhi adduhuuru shadru liimaan dahaarada layska dayraa xumaatada waa iimaanka niski waa salaada niskeed haddaan dahaaro jirin salaado ma jirto haddaan shirki laga tegin camal lama aqbalayo ahadku inuu rabbi isu dhiibay oo alla addoon u yahay waxaa lagu gartaa inuu rabbi keliya caabudo rabbina uu ku caabudo wuxuu isagu jideeyey oo kali ah ose wax kale ku caabuday taasaa lagu gartaa haddaan taa la helin wax hagaagayaa ma jiraan marka arrinta aan garanno waxaan usoo gudbaynaa kolka dahaarada qaybaha loo baahan yahay qofka doonaya inuu dukado markuu xagga iska dhigo gaalnimo iyo wax kale uu ilahay isu dhiibo waxaa laga doonaya inuu waratirkiisa dahiro nijaasada ka ilaaliyo sida rasuulka amar loogu siiyey sala allahu alayh wasalam waa inuu jirkiisa dahiro korka badankiisa maxaa yeelay qofku hadduu nijaaso yahay wax laga aqbalaya ma lahan allahuma hadday nijaasada cudur ku keeno waxaa jirta mar ratirkaagu nijaaso yahay oo korkaagu nijaaso yahay oo meesha aad ku dukanaysaa ay nijaaso tahay oo cibaadada lagaa yeelayo waa waktigee arrintaas iyada ah waa waktiga ay dhibaata ku geysatay xabsi haddaad ku jirtid ama meelaad ku dukatoo kale aad weyso ama arratiraad isaga bedasho aad weyso ama aadan biyo haysan salaada duko alla saasoo kaaga aqbalaya subxaana wa tacaala taa dhibaata ma lahan laakiin adigoo heli karaya haddaadan dahaaro qaadan alla ma aqbalo salaad aan loo dahaaro qaadan axad walbow dahaarada la imaado oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala markaad dahaaradaas la timaadid ka gadaal ayaad bilaabaysaa waysaqaadkii arratirkii waa ku daahir jirkii waa ku daahir gubays waajiba laguguma lahan nijaasa kuguma taallo wax walba waa iska nadiifinay waysaqaad baa lagaa doonaya waysaqaadka lagaa doonaya rabbi baa ka hadlay waxau allah oranayaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa fagsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyayo marka aad doonaysaan salaad inaad dukataan la imaada niyo oo horta u qasta inaad salaada la dukanaysaan oo waysaqaad u qasta marka la weyse qaadanayo see loo weyse qaataa wejigiina dhaqa gacmihiina dhaqa madaxiina masaxa lugihiinana dhaqa arrintaas ayadaa nabiga ayaa fasiray sala allahu alayh wasalam cabdullahi ibni zayd cabdullahi ibni cabbaas cali binu abi aalib iyo rijaal kale ee fara badan waxay rasuulka ka wariyeen sala allahu alayh wasalam sida ku sugan sunan iyo saxiixayn intaba waysaqaadka kayfiyadiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi laa wudu'a liman lam yudkar isma allah waysaqaad ma lahan axad aan magac ilaahay xusin markuu wayse qaada xadiidkaa duruq ayaa u sugan caddaynaysa inuu nabiga ka sugan yahay qofka wayse qaadanayaa laazim inuu bismi illaahi yidhaahdo hadduu halmaamo alla inuu cafiyaa la rajaynayaa laakiin kas haddaad uga tagtid ama adan la imaanin adoo u qasaya ogaw oo waysaqaadkaaga dhib weyn ba haysta salaad ma lahan qof aan wayse qaadan waysaqaadna ma lahan qof aan bismi illaahi la imaanin rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala markaad bisinkaa la imaanayso waa markaad waysaqaadka bilaabaysid rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan gaslu lkafayn labada kaf in la dhaqo oo la faraxaso salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka sugan caday afka cadaga in lagu nadiifiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa ka gadaal rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau samaynayay ya'kudu lmaa biyadihi lyumna gacantiisa midig ayuu biyo ku soo qaadaya markuu gacanta biyo ku soo qaado fa yumadmid wayastanshid waa ku luqluqanaya waana ku sandaarsanaya gacanta biyaha uu ku soo qaaday qayb kamida wuu ku luqluqanaya qayb kamidana sanka ayuu gelinaya rasuulka sala allahu alayh wasalam saasuu samayn jiray markaa ka gadaal istintaarka waxau ku samaynayo sanka biyaha uga siiminayay biyadihi lyusra gacantiisa bidixda saas ayuuna dadka u diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayo waxaa caddaynaya axaadiis sunanka ku sugan in gacanta bidix lagu siimiyo sanka hal mar baa ugu yar labaa ku xigta saddex baa ugu badan halkii marba sanka iyo afka waa loo qaybinaya idaa tawada'ta famadmid wastanshik wabaalig fi listinsaaqi ilaa an takuna saa'ima luqluqashadu waajib weeye sandaarashadu waajib weeye axadka ka taga waysaqaad in laga yeelayana daliil looma hayo fuqahadaa isku hayda iyo culamadaa ku marantay weligii kama tegin nabiga ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa looga tegayaa rasuulka weligii kama tegin axadka luqluqashada iyo sandaarashada ka taga marka uu wayse qaadanayo waysaqaadkiisa meeshuu rabaa isagaa geysanaya
معايا رسولك قال له ولي كما تجين وعلى الرجوع أمر يأتغينا تديتي أمرنا وأكبحي وحوى سنيوي صلوات الله والسلام عليه مركع على صامنين وعلى الرجوع أمر إن يفتينا كل وجود سنك بيها لجينا مركع صامتها سبيها كيلا على بالقولية أيه رسولك صلى الله عليه وسلم وعقوة سقادنا يوال أصبرنا جعنت أيوه درسني لكن انت وسنك ما درسن بنانك وكفر على يمرك هره فنينك بيها والك جاريا وحبك اللي بمي sida masuuda sayaha sheegayso ma uusan dhihin mustacmal bay noqdanayo alla iga daboolayo kirla daboolaysiya midna ma dhihi jirin weel yar oo af banaan buu kuwaysa qaadanaya gacmaha banaanka ku dhaqanaya waa darsanaya waa ku luqluqanaya waa soo darsanaya waa ku luqluqanaya waa soo darsanaya haddana wejiga ayuu dhaqayay sala allahu alayh wasalam haye fagsiluu wujuhakum wejiga oo dhan laga bilaabo tintu meeshay ka soo dhalato madaxa ilaa garka hoostiisa dhegta ilaa dhegta laga gaarayo أحكي عن دقيقة سميتي عرجو ولا جارسين دقيقة وجهه ويستقاد كيسي ويستقاد معها وأغير هالمر لابو سدح أبو بلان سدح قفل كبري ويستقاد مرهن أيوة قفل إبتلي هدو هالمر وقدعي نعم ومعذور لكن هدو كبري وكس السمية حوية وقف مصرفة دتك مصرفين تان إلهي مجعل الله هدي إلهي كنا معنا وحول بالله ومسوطوريا هذا تقال الناس الجيسانين ربي هذا قبض سبحانه وتعالى جعنت مليك ورسول كنا قيا يتدح لابو حلبة ويا جعنت بيح كذلك مرحى يوم التحيي صلوات الله والسلام عليه أحاديث صحيحين هي السنن كسران باسدا عطينيسا مرحى الرسول كسران أمة هجري صلوات الله والسلام عليه فأقبل وأدبر هل مرضو مريني هل كفودا وكب الله ويا سلاسه مريني وأنا كنت عيني هل مر صلى الله عليه وسلم هذا مرحو دبولي هاي فودا أيوم بيها سلا وقال جعنت وقيا موضوع كمريني وعلى روايات قال لا يقرنا يا ولي أيضا صدعت بها لجلين كوركين لقى مركضه إنك سؤال ورك قلان رسولك مسح كسبا ملح وهالمر سيدا روايته وقب ليهين أبو داود النسائي لا واحد جاء رواية سدح سيجيسا وهي علماء لكو حكم يا المحدثين تأساس إليه معمول معهن فردا وتقدير هدين لك قدر إليه سبنتاي سيدا سنة كده بو سبيه هاي معنوه وحي نقر يا النبي تاريخ ذي اللي أركي جري أسبه ويسقى لنا هالمر بالا أركي أسبه ملح سدح جانا مستحيل لكن ويسقاتك أدلة لك ورانتي هيك فرحة كبطوا تعاودوا صانع غليين هالمر بي ملح مسحيدة شيئا مركا أدلة إلى ملح سدح والله مسحيل أسبه وحقون بابا جرا لكن دقاها أيوة هالمر كبطوا لما بهيبا لما بهيبا أيوة ملح وإلا مسحها وواجب أو سكاتكو أنسحي لأنتيسا مدعو هدو كوبا ناني هاي واجب بي كوبوتاي إن الهلكا قعمها كبل وهلكا قيدو كسو عليسي هدو كوبا ناني هاي ويا رسولك على ساسة وسميه وعانا فسيري يا قرآنك ورسولك فامسحوا برؤوسكم فقهانا اسكو هايدا لكن ده كان نبي قصوري هاي قوال يرادين لما تحايو ساسني هاي بياقي عنك فقهانا داري ساسو حق يجيرو كاقة ماذا حدث ساسو ما ترى الحقية ساسو فايا هاي ترتيبك عنك فقهانا مريسو والرب كي كبقى سبحانه وتعالى اللي كده فرحان مركا كجل رسولك وحوي الأذنان من الرأس لقوا ملحي كمجهين حديث كان طرق للعلماء قالوا إليه وحسن لقوا ملحا أيه كمجهين هدي لي هذا ملحا مركا الله مسعه وقعنت لقوا سؤال يدقاها اللي سوق الدنيا يا فرحان بيك كمان الله سوق علي مايو فيكستو من تاينا دقا إن بيك جديد الله سوق على دقاها وعرستو غن وسونك أيه كستو من تاينا غير كوين كام أي الله وزارك موسيقين وانا هالمر وحكبر المجرين دقاها إلا مسعه واجب ويه من اللي قيتي كرو من كتجي رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه واستقاد كمركز سيدا أسوه ودي لغوها قدك رسولك مركو كتشيكيني لقيتان كاللغوها إياك عماها انتبه وأولي وخلل بين الأصابع اسقلقلي فرحاها وعلى قدونا يا مركز واستقاد ليست إن فرح اللغوها فريتها يقلقليست ويحديث ما كسر أبو داود كسر أوسغن نبي فريتيسة إنه قلقلين جري اللغوها مركو نغا يفرحونا فريتها بلها وعو رسولك أمر كنت هي إربت الست عن الله دقو ويل للعقاب من النار بوي وإذا النار سوحا إسكالمتك وضوحا ذاتك أن إربت وذا ثاني ودقين أي إربت هذا فرح هذا ميلول جارسي بيها ملقي يبري احتدا ودق مركز ما يسد وحاتر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحد كالسدا إيانا سداد الباب ولا جنة الله فرى يا أبو النبي كويل حد المسلم كنت وانا وسداد الباب ولا جنة محل أبو غفريا سنسرتي كسو إلهي ويستقاتك سرتك أبو هريا وامعه ويستقاتك بسم الله والله بالله وحكتكي سنعري مصوى إلهي معناها أرنت كلو لقادونا يا وامعه هو يستقال وصونا بيقو ويستقالنا
حملها انت ودقا يدك او قبل او غيرين صلى الله عليه وسلم أرنت السدحات وامحي بيها أكو ويسقالين إسرافك إلى عليه dadka inta tubada ad fadhiista tubadu iska socoto madaxa soo dhaqanaya wax way saqaalo ilayhiin malahan haddaysan ka laabanin waa musrifiin dadka musrifiintana ilahay ma jecla wakuluu washrabuu walaa tusrifuu xataa cuntada iyo cabid jibal yaan lagu israafin inta caloosha laga badbadiyo yaan kookoolana raadsanin waxaa uga dhibtay yaan lagu haynin waxa jirin wax kastaa noqdeen wax cun oo waxaad oo wax la biso israafka iyo xadgudubka iska ilaali mar walba bal waysa qaadanaysaa dembina ka soo qaada meesha tubada markaad ku waysa qaadanaysid gacanta ku subo انت كفر وجهك الى تكون غير سيح انت الوجه دغيسيد بيها سعد بريته ولا يسوجينا يا اسراك وين كتكتا وصردي وهرلا ما معنا حتى ان كتك الميه ارنت افرض وين الدرت ويسقاك ولا جيتي هي الصلاه اللي كنت كتي مركب ويسقاك كذا ميلنا وين اذكرت النبي وهل لي ما او يري اضت معنا انت مركب لغا هلي سديد الباب ولا كان على غفر اي صلاه اللي ترمت جاري ولي وفيرسو ويسقاك بقى لغو غفريا يا اخواني ربها لغا بخو